dhammaanba goobaha waxbarashada ee dalkan Kenya ayaa xirnaa tan iyo 15kii bishii March ee sanadkan xilligaasi oo ay dawladdu ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo lagu xakameynayo xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Macallimiinta wax ka dhigayay iskuulaadka gaarka loo leeyahay ayaa dareemay saameyn dhaqaale oo weyn kadib markii iskuulaadka laga fasaxay ardayda uu mushaharaadkoodu ku tiirsanaa lacagta fiiga ah ee laga qaado. magacaygu waa Cabdinaciim Maxamed Maxamuud waxaan ka mid ahay macallimiinta ka howlgala xariyaha Dhadhaab asatan xaga dheer haddii aan ka hadlo caqabada iyo saameynta uu ku lahaaday bulshada xaga dheer cudurka loo yaqaan corona ama COVID-19 waa mid oo iskuulada dawladda ay gacanta ku hayso ama kuwa hay'ada ay gacanta ku hayso kuwa gaar loo leeyahay oo macallimiin badan ay ka shaqaysanayeen oo ay noloshooda ku maareynayaan waxay ka helaan tii iskuulada ay dawladda gacanta ku haysay weli gacanta kama bixin oo dawladda xaaladooda og tii hay'adihii sidoo kale hay'adihii gacanta ku hay og mid in loo danqado in laga hadlo ay tahay waxay tahay iyadana iskuulada gaarka loo lahaa maadaama ay hayeen arday cadadkooda uusan yareen ay hayeen macallimiin aan cadadkooda yareen waxa meesha ka baxday ayaga in xaaladooda dib loo eego oo dib loo fiiriyo la yiraahdo sidee iskuuladaas maadaama dad ay hayeen loo samata bixin karaa marka maalintii laga soo bilaabo bishii saddexaad ee xaaladan imaato iskuulada la xiray ilaa yoomul maanta la joogo macallimiinta ayaga waxba lama siiyo waxbana ma helaan waana dad bulshada ka mid ah oo ayaga naftirkooda saameyn baan ku yeeshay aanan waxba helin taas waa mid dib taagan oo la dareemay magacayga waa Warsan Cabdiqaadir Axmed waxaan ahay macallin dhigo school private ka iskuulkaas oo lagu magacaabo Xikma Academy oo ku yaala xarada Xagdheera aniga ahaan waxay ii saameysay marka waxa jiro ilaan family aad ka soo jeedo dad ba ugu tiirsan dad ba ilaan ku daba taagnaa oo marka shaqeynayay noloshaada ka fikiraysay laakiin hadda maadaama cawaqan uu dhibaatadan keenay oo nolol maalmeedkaadii ama mishaarka ay qaadanaysay xakar uu ka galay marka wadanta waxay qasabtay in dadkii adeeg ugu tiirsanaa ayagana ay qabada weyn soo wajahdo dadkii ayaga adeeg ku fiirsanaya oo mishaarka soo qaadatay ama aan ugu tiirsanaa ayagana qabada weyn ay noloshooda soo qortay marka xakar ayaa imaada dhanka family xitaa aniga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Bishaar Cabdi waxaan ka mid ahay macallimiinta ka shaqeysa iskuul ka mid ah iskuulada xiriyaha ku yaala maaragtay gaarka loo leeyahay magaciisana la yiraahdo Xikma Secondary School dhaqaale ahaan hadii la fiiriyo saameyn maaragtay baaxad leh oo inta leeg ayuu iyadana nagu yeeshay macallimiinta waxaa loo og yahay wadanka macallimiinta maaragtay guud ahaan wadanka dhigta waxaan u qaybsan yihiin kuwa iskuulla bareefada dhigo oo gaar loo leeyahay iyo kuwa iskuulla public dhigo oo dawladdu ay maaragtay gacanta ku hayso waxaa loo og yahay kuwa iskuullada public dhiga ama corona ha dhaco ama yuusan dhicin ama fasax la galo ama yaan la gelin macallimiinta iskuullada public dhigta ay waxooda way helaan mar walba dawladdu ilaa iyo hadda ana waxooda lacagtooda way siisaa iskuullada public ahna maaragtay lacagtooda way u socotay mushaharkoodii iyagoon shaqaynin waqti xaadirkan oo gurigooda jooga ayay helayaan lockdown baa lagu jiray hase ahaatee macallimiintii bareefadka ahaa taas way ka duwan yihiin marba haddii wixii maaragtay macallimiinta mushahar u ahaa ay ahaayeen wax waalidkii ka imaan haya macallimiintii waqti xaadirkan lagu jiro lockdownka oo ka soo bilowday ilaa iyo bishii saddexaad bartamaheedii wax maanta mushahar ay leeyihiin ma jiraan taasna waa dareemi kartaa qofka maaragtay ama maaragtay xaas baa la xiriiray iyo family ama waxa la xiriiray maaragtay family isaga dhalay oo waalid iyo waxba la xiriiray iyo caruur walaalihiis oo la dhashay marka xaasilay saameyn aad u ballaaran ayuu keenay macallimiinta iskuulaadka gaarka loo leeyahay ayaa dhankooda codsaday in arrintooda hoos loo eego waxaan codsan lahaa iyadoo cudurkani la qiimeynayo oo nolosha waxa ugu muhiimsan ay tahay dadka naftiisa inuu macna markasta badqabkeeda la ilaaliyo haddana dadkan ayaga ah in xal oo sidan dhaama oo laga hadlo in loo wajaho ilaa hadda ma aragno xal dadka ayaga ku wajahan ee looga hadlayo la leeyahay dadka ayaga maxaan ka sameynaa macallin markii la dhahaa waa dalad guud laakiin way kala baxayaan sidaas la ajeel markii macallin la dhahaa ama shaqaale guud la dhahaa cid waliba oo saameyn ku yeelatay sida saameynteeda looga samata bixin karo iyadoo haddana cudurka daruufiis la ilaalinayo ayaan ku dhiirigelin lahaa dawladda ay cid waliba oo markaas mas'uul ah oo bulshadana inay wax u qabato u taagan marka waxaan codsanayaa insha Allah hadii la fiiriyo in xal la heli karo xal sidii lagu xalin lahaa ileen ninkan ruuxan waa ruux ama head of the family waa family ay u weyn yahay wax ayaa laga rabaa caruur ayaa daba joogta ama waalid ama waayeel dad ayaa guryaha u fadhiyo oo asagana marka asaga ayaa lagu tirsanaa waqtigii asaga oo
lagu moodi lahaa ayuu marihaa marka asagana qofkaas oo kale oo hadda macalinka ah iskuulada shakhsiyaadka loo leeyahay inay xal la keeno sida ayagana dadkaas lagu qancin lahaa sida anagoo kale talabaad waxaan codsan lahaa xiddi maaragtay macalinku sida aad bilaadan adigu u tahay isna bilaadan u yahay waalidiintii dhamaan anaga awal maaragtay na taageeraysay iyo macallimiintii na taageeraysay maamulka inaan ka codsado in maaragtay haddii dhibaatadani ay timid ilaahay baa keenay anagu ma keenin inaan maaragtay lagu fiirsanin maaragtay saameyntan baaxadda leh dhaqaale ahaanta soo koray inaan lagu fiirsanin laga garab siiyo haba yaraata haday doonto maamulaha iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Xigma Academy Cabdifataax Yuusuf Cabdinuur ayaa qiray in ka maqnaanshaha ardayda ee iskuulaadka gaarka loo leeyahay uu meesha ka saaray bixinta mushaharaadka ay siin jireen macallimiinta waxaana uu waalidiinta ku dhaliilay inaanay macallimiintoodii la qaybsan xilligan adag horta iskuulku waa iskuul private ah iskuulkana markuu private yahay wuxuu leeyahay hal soos oo dhaqaalaha uu ka soo galo hal ilbis uu leeyahay laba ilma laha isha kaliya oo dhaqaalaha uu ka soo galo waxa weeye waalidiintaas lacagta ay keenaan waa ayada wax laga dhisaa ayada wax horumarin iskuulku u baahan yahay oo repayment ayada laga sameeyaa mishaaraadka macallimiinta ayada laga siiyaa arrintii way istaagtay oo hadda ma jirto oo waalid lacag noo keenay ma lahan wax waalid oo iskuulka ma dhahay lacagtaana idin wadnaa macallimiin oo bal xogo hatta kala bar intaan qaata ma jirto maadaama ilmihii fasaxan yihiin ninkasta ilmihiis guriga u joogaan haddana ninkasta wuxuu is dhahay kolley xaq laguma laha inaad lacag bixisay iska dhaaf macnaha ilmaha maadaama guriga joogaan markaas si u fiiriso waa dhaqan aan fiicnayn waa waxaan duruufa imaatay arrin waxaa imaatay hor aan u jirin markii saan oo kale dhacdo ummadda waa in la isku duubnaado dadkii shalay ku waday adin waa maanta maadaama ay ku hoos imaadeen waa inaad intaa u qaban karta adna isku daydo macallimiintii ilmahaaga sharax u dhigaayeen ilmahaaga inay wax u baraan diyaar u yihiin markasto ayagu ma cudur daaranin xanuuna yimid xanuunka hadduu yimid waxaa la rabay at least waalidkiina inta isgartaan naftirkooda ay dhahaan warad waxaan bini aadan annaga u tacalluqo oo aan anaga wax naga sugaayay ahayn bal at least bal intaas arkaan inay dhahaan bal intaan aan wax u geyno macallimiinta aan siino bal intaas ma dhicin ayadana oo nin kasta waxay noqotay un saameynta koronaha uu keeno baan u malaynaa inayna sabab noqotay leanna waalidiin badan oo ayaga naftirkooda wax badan heli jiray oo lacaga dibadda kasoo gaari jiray dad badan meelo badan wax uga imaan jiray ogama imaadaan sababtoo ah koronaha awgiis dadkii wax soo diray dhanaa laga yaaba inay cudur daateen ama ay xanuunsadeenba lacagba ma hayaanba markaas baalkan wuxuu yeeshay saameyn aan caadi ahayn annagana maadaama hadda lacag hadda iskuulka lacag u taallay oo uu leeyahay oo account ugu jirta ma jirin oo macallimiinta la siiyo maadaama marka arrinta ay jirin oo macallimiinta lacag hadda iskuulka u taallo account ugu jirto oo macallimiinta markii xilliga la gaarto loo yeero la iska siinayo aysan jirin hadda waxay u muuqatay waxa laga qaban karo annagana wax ka qaban karna maaha Axmed Cabdullaahi Jaamac Dhadhaab